أنا هاي Somali Christian لكن إن لقى صاروح مسلمك أيها سوجي دينا يا من ديدني هدي اللي قدر أيوه 7 sano ka hor waxa ay sheegtay inay qaadatay diinta Kirishtanka hase yeeshee ugu dambeyn 2020 waxa ay ka tirsan tahay baarlamaanka Soomaaliya iyadoona u ololeynayso in dadka Kirishtaanka ah ay xil ka qaban karaan Soomaaliya sharcigan ayayna hor keentay baarlamaanka haddaba daawadayaal maxaad kala socotaa shakhsiyadda dhabta ah ee Maryan Haruun oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya inta aanan kula wadaagin xogaha iyo sidoo kale muuqaalada ku aadan islaantan iyo dhagarta ay damacsan tahay fadlan marka hore muuqaalka leegaray maxaa yeelay leegtu waxay noo tahay dhiirigelin iyo dardar iyo in aynu maalin walba idin soo sameeyno muuqaal cusub kuwaas oo aan bulshada Soomaaliyeed uga digayno wax walba oo dhibaato ku ah sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta sida maalinlaha ay noogu xiran sidaan hore idinkugu soo sheegay Maryan Haruun waxa ay ka tirsan tahay baarlamaanka Soomaaliya haddaba xildhibaanadan ayaa shalay waxa ay ka sheegtay hadal la yaab iyo ama ka ku abuuray dad fara badan oo Soomaaliyeed kadib markii ay tilmaamtay inay jiraan dad haysta diinta Kirishtanka kuwaas oo Soomaali ah waxa ayna dalbatay in dadkaas loo ogolaado inay dalka hogaamiyaan oo ay ka qabtaan xilalka ugu sarreeya ee dalka hase yeeshee isla baarlamaanka gudihiisa ayaa arrintaasi looga soo horjeestay haddaba daawadayaal maxaad kala socotaa sababta weyn ee islaantani ay xaquuqda ugu raadinayso dadka haysta diinta Kirishtanka maxayse tahay dhagarta malyeegan oo ay damacsan tahay marka muuqaal ahaan la eego inkastoo ay hagoogan tahay hase yeeshee maxaad kala socotaa ujeedadeeda rasmiga ah arrintan ku aadan waxaan idin haynaa muuqaal ay nala soo wadaageen qaybo ka tirsan dadka nagu xiran kuwaas oo ay ku sheegayaan inay tahay islaantan oo mar sheegaysa inay diinta Kirishtanka ku biirtay walow ayna si rasmi ah u cadeyn karin hase yeeshee taageerayaasheena nagu xiran ayaynu arrintan 100% cadeynteeda ka sugeynaa haddaba daawadayaal muuqaalkaas ayaan idinla wadaagi doonaa hase yeeshee inta aan muuqaalkaas idinla wadaagin waxaad ila daawataan muuqaalka marka hore ay ku sheegayso in dadka Kirishtanka ah loo ogolaado inay dalka hogaamin karaan sharuudaha magacaabista cidda loo magacaabayo agaasimaha guud iyo ku-xigeenada hay'adda waa inay buuxiyaan sharuudaha soo socda kow inuu yahay Soomaali Muslim waxaan u malaynayaa Soomaali 100% inay muslim tahay waa aaminsanahay waana nahay laakiin waxa la sheegaa qaar aan ahayn inay jiraan kuwaas ma kala noqonaynaa waaye Soomaalinimada waxaan dhihi lahaa meeshaas muslimka ay ku taalo ilaahay ayagana ha ka dhiga muslim buuxa laakiin in laga saaro muslimka ayaa soo jeedinaya man diidani hadii lagu daraayo laakiin kuwaan muslimka ayna aan u duceyno inuu ilaahay muslim ka dhigo laakiin Soomaalinimadooda ay taagnaato taasna waa soo jeedin lahaa midda labaad in ay da'diisu ka yaraanin 30 sano inuu dhimirkiisa buuxo chatra iyo wixii kale okay qodobkaas wuxuu ka hor imaanayaa qodobka 14aad okay qodobka 14aad haddaad ila fiirsaan wuxuu leeyahay muddada xilhaynta agaasimaha guud iyo ku-xigeenadiisa agaasimaha guud iyo ku-xigeenadiisu waxay xilka haynayaan muddo 5 sano ah okay waxa laga buuxiyay wax allaale iyo wixii laga buuxin lahaa dadka abalay gareynaya shaqooyinka caadiga ah waa hadal ama kaag iyo naxdin leh inkastoo qof kasta oo muslim ah oo Soomaali arrintan uu ka carooday maadaama dastuurkeena uusan dhigayn arrintaas sidoo kale diinteena islaamkuna aysan qabin in qof gaal ah uu hogaamiyo qof muslim ah haddaba daawadayaal waxaan idinla wadaagayaa muuqaalka noola soo gudbiyay kaas oo dadka Soomaaliyeed nooga dalbadeen in arrintan xaqiijin lagu soo sameeyo bal waa kan ee la daawo markan muuqaalkan أنا هاي Somali Christian waxaan rabiga qaatay 14 sano ka hor waxaan deganahay wadanka Norway masiixi waa badbaadada waa nolosha waa iftiinka wadada kaliya oo nolosha weligeed aad ku heli kartid rabbiga u kaaliya goortu yimaado inuu qaado dadkiisa kuwa quudsan oo nadiifsan oo lagu mayray dhiigiisa sida xidig bay u nuurayaan waa warkiisa jannada farxad baa
subxaan allah ayaynu leenahay. in badan oo idinka mida muuqaalkan horey way u arkeen. haddaba daawadayaal, haddii aad ka mid tahay faamilka gabadhan, fadlan arrintan xaqiijinteeda nala soo wadaag adiga oo nala soo xiriirayo. haddii aad ka haysaan xogo iyo macluumaad kale oo ku aadanna nala soo wadaag, si ay dhagarta ay ku haydo bulshada Soomaaliyeed aan uga digno, daafac adagna looga galo. halkaad muuqaalkan kala socotiin waa Hal Door Media. haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreysay ee janaalka, fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarato sayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino. waxaan ahay Somali Christian. sharuudaha magacaabista cidda loo magacaabayo agaasimaha guud iyo ku-xigeenada hay-adda waa inay buuxiyaan sharuudaha soo socda. kow, inuu yahay Soomaali Muslim. waxaan u malaynayaa Soomaali 100% inay Muslim tahay. waa aaminsanahay waana nahay. laakiin waxaa la sheegaa qaar aan ahayn inay jiraan. kuwaas ma kala noqonaynaa waaye Soomaalinimada. waxaan dhihi lahaa meeshaas muslimka ay ku taallo, ilaahay ayagana ha ka dhiga muslim buuxa. laakiin in laga saaro muslimka ayaan soo jeedinayaa, mana diidani haddii lagu daraayo. laakiin kuwaan muslimka ahayna aan u ducayno inuu ilaahay muslim ka dhigo, laakiin Soomaalinimadooda ay taagnaato. taasna waa soo jeedin lahaa. midda labaad, in ay da'diisu ka yaraanin 30 sano, inuu dhimirkiisa buuxo, etc. iyo wixii kale. okay, qodobkaas wuxuu ka hor imaanayaa qodobka 14aad. okay, qodobka 14aad haddaad ila fiirsaan wuxuu leeyahay muddada xilhaynta agaasimaha guud iyo ku-xigeenadiisa. agaasimaha guud iyo ku-xigeenadiisu waxay xilka haynayaan muddo 5 sano ah. okay, waxaa laga buuxiyey wax allaale iyo wixii laga buuxin lahaa dadka abalay garaynaya shaqooyinka caadiga ah. waxaan ahay Somali Christian. waxaan rabbiga qaatay 14 sano ka hor. waxaan deganahay waddanka Norway. masiixa waa badbaadada, waa nolosha, waa iftiinka, waddada keliya oo nolosha weligeed aad ka heli kartid. rabbiga u kaaliya.